هندسه دولتنا برواقنا حسينين والله وتا حياتي والله وتا أقورتي ليس ماشا الدنيا ظهر الأوقاتي هندسه دولتنا برواقنا حسينين والله وتا حياتي والله وتا أقورتي ليس ماشا الدنيا ظهر الأوقاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan mudanayaasha baarlamaanka qoladan ka socota hay'adda UNSOM xogayaha guud ee baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan maamulka baarlamaanka halkan ka qayb galay gaar ahaan meediada halkan maanta barnaamijka aynu ku hayno ama workshopkan waxa weeyaan wuxuu daba socday dhowr bilood ka hor qoladan UNSOM ee Muqdisho halkan timid waxay wadeen barnaamij dib u habeynta ciidamada. barnaamijka dib u habeynta ciidamadu ma aha barnaamij wax fudud ah, wuxuu daba socdaa heshiis weyn oo London ka dhacay oo kulligii siyaasiyiin baatin wada la socotaan oo lagu heshiiyey in Soomaaliya hay'adaha amniga la mideeyo, maaragtay la qalabeeyo, ciidan tayo leh laga soo saaro, ha ahaadeen police, ha ahaadeen military, هذا إذا كبدا برنامج كوين يا مارتي شركة لنا كدعي ودولة السياسيين الصومالية أو دولة الفدرال كي معمولة مدحض معمولة أي هاي يخبروا يو ديق بحياشة برنامج كاس برنامج وين بوها وضها هدينا لقى واحد مارتي ambitious لو قلت لك مارتي مستقبل كاس صوماليا سيدنا قونيسو إذا مدة إذا كمارتي waad aragtaan biometric data lagu sameeyay ciidankii waxa lagu sameeyay right system baa leeyahay ama waartay ciidanka tirakoob baa lagu sameeyay dadku ku haboon baa maartay lagu tababaray. waxa kala socda xaqsiintii ciidamada kale waa barnaamij weyn gundhigiisuna uu yahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu inay ka wada socdaan. haddaan siyaasadda heshiis lagu ahayna barnaamijyada ciidamada iyo isku dhafkooda iyo tayeyntooda iyo qalabeyntooda iyo maaragtay qofkii aan xilka qaban karin oo benshinkiisa macnaha laga saaro iyo xaqsiintooda intaas la isugu daraa wax fudud maaha. inagu baarlamaanadu waxay ka soo galayaan gaar ahaan gudiyada amniga oo kale iyo kuwa cadaaladda iyo inay la socdaan macnaha nidaamkaas ilaa dawlad baynu nahay. baarlamaankuna shuruucda isagaa sameeya korjoogtayn baynu ku leenahay. gaar ahaan aad barnaamijka wuxuu khuseeyaa qolada guddiga amniga iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga maaragtay cadaaladda intuba way soo hosgelayaan. inagu shaqadeenu way socotay, federaal way ka horeysay, barnaamijyadeenu ciidamadeenu reformkooda wuu socday, tababarkooda wuu socday, maaragtay kala hufista iyo kala haadintooda barnaamij noo socdo ahaa. laakiin waxaad moodaa barnaamijka focuskiisu inuu saaran yahay federal government of Somalia. qoliyaha kan waa qoliyaha jooga xafiiska UNSOM waxaana u badan yihiin siyaasad iyo amni bay isku wadaan, laakiin barnaamij aad la isu dhexgeliyey ama maaragtay ciidamadii la isku dhafay ama tira la isku raacay oo maaragtay hirgashay innaga kolley Puntland anigu ogaalkay kama jirto. laakiin waxay la tahay la yiraahdaa wax markay khayrku soo socdo meel fog buu iftiinkiisu ka soo muuqda. marka waxay la tahay barnaamijkan waa barnaamij soo socda, laakiin inaga haddeer wax weyn oo UNSOM aynu wada qabanay anigu aan ogahay xagga ciidamada qolada booliiska way jirtaa meel ay ka wada shaqeeyaan sida saldhigyada iyo qaybtan miinada iyo way jirtaa qaybta maritime ko kale ama maartay ciidanka badda oo kale iyo barnaamijka la dagaalamka maartay burcadbadeeda iyo barnaamijyo noocaas iyo tababaro iska jiraan. laakiin wax la taaban karo weyn oo hadda Puntland anigu intaan ka ogahay iska bedelay ma jiro. laakiin barnaamijka iyaga gacanta ku haye wixii ay soo bandhigaan waynu la arkaynaa, waa kala doodaynaa. wuxuu noqonayaa kan bilowgii waxaan u malaynayaa inuu noqonayo meeshii aynu
ka wada bilaabi lahayn iska raaci lahayn oo maaragtay aynu ay mustaqbalka ayna hadday wixii wada shaqayna iyo barnaamijyada in laga caawiyo arrimaha maaragtay amniga ama wixii aqoona ay beesha caalamka ama unsom ay bixiso waa soo dhawaynaynaa. waxaad joogtaan dee meeshii aad joogtaan xamar oo kale aan maynaya way halkan waa ka yara degan tahay waad socon kartaan banooniga iyo waad maaragtay sports waad samayn kartaan qaata kole dhalinyaro Soomaaliyana waa ku jirtaa idinku baa u sheegaya ku soo dhawaada workshopkiina waa inoo furan yahay tababarkana waxaan rajaynayaa labada casho socdo si wanaagsan inaynu uga faa'iideysano intaas ma soo jeedin lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shirkana inoo furan.